السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalaheyga maanta waxaan rabaa inaan kariyo macmacaankan ciida oo loogu talagalay magaciisa waxaa la dhahaa mataluta marka meesha waxaa ii yaalo hal bakeeri sokor hal bakeeri ukun iyo hal bakeeri oo subag marka sokortan iyo subaga iyo ukunta waxaa loogu talagalay inaan lagu sameeyo matalutaha kullina waxaa loo baahan yahay bakeeri inay noqdaan heela meesha ii yaalo marka ukunta hadaa kala jabisid yani oo kusoo baxo ukun weyn ukun yar it doesn't matter full cup inuu noqdaa la rabaa iyo hal xabo oo gooni ah waa isku wada garaacaysaa hal cup iyo hal xabo ukun waa si fiicanna iskugu garaacda loo baahan yahay maxaa dhahay hadii kale ukunta hadaa sameynaysid aad karinaysid ukuntii waxaa arkaysaa oo gobol ah marka ma la rabo gobolkaas in la arko wixii dhan waxaa la rabaa inay isdhexgalaan oo si fiican iskugu qasmaan marka saliidiyaan dabka saarana insha Allah subaga halkii bakeeri inaan ku shubaa markaan dabka saarto oo kululaado waxaan ku shubaa hada ukuntii iyo caanihii aan isku soo garaacay marka xurbin ha isticmaalin fargeeta isticmaalin iyo qaando waxaa loo baahan yahay geedkan keega lagu kariyo inaa ku walaaqdid maxaa dhahay geedkan keega wuxuu ku fiican yahay wax walbo uu isku dardaraa geedkan waxaa loo baahan yahay inaa si fiican gacanta ugu joojinin amaanta dhan gadgadisa loo baahan yahay dabkaagi marka high na yuu noqonin low na yuu noqonin medium ha kuu noqdo oo fiican wax karinayo oo kale hadaa high ka dhigtid hoos dhan waa kaa gubanaa marka waxaa arkaysaa burkii oo madmadow iyo kalar kale lahaaday heelkii marka kiskis aan ugu shubanaa kulli ma ku wada shubaya hal marba kis aan ku karsanaa marba kis ilaa iyo markuu dhamaado marka insha Allah aan isticmaala inta ugu dambeeyo hadda waxaan ku shubtay hal qaando oo bur ha buuxin marka qaandada soo dirtid afka ka tirtir hal qaandaha noqdo waxaan ugu shubayaa inuu isku keeno waxaan dhan waa u jeedin wuxuu wajiga waa bedeli kalarka loo lahaaday marka aragtid waa gadinaysaa marka waxaa loo baahan yahay ama gacantaadi ama saxan fidsan ama qaando wax u qaado sidii kulli isku jin ugu wada dhigtid sidii yani uu noqonin meel wax badan iyo meel qafiif ah marka goonaysa dhoog waxaa ka halaabayo quruxda oo suu ekaanayo aan ka wadaa marka goonaysid marka intuu kulul yahay loo baahan yahay inaa gooysid dhaqso haduu ka qabo marka jaraysid uu ka daadaadanaa markuu kulul yahay hada saan waa kulul yahay waa ujeedin saxanka pizza aan ku sameystaan ku soo shubtay saxankan wax uu kuma dhago ahaana u isticmaalaya marka goonaysid waxaa loo baahan yahay geesaha afarta gees inaa isku keentid sidii wixii yani marka goonaysid ay ku qurux badnaadaan saasay tahay laakiin still waa goonaysa waan ka bixinaysaa ku geesaha maxaa dhahay marka quruxdii oo dhaxda ka soo baxsan lahayd uu ka haleena geesaha waxaan ka googoonayaa geesaha markaan ka googooyo haddana waxaan u goonaa dhirir saan hadhow aan u jarjarto quruxdiisa loo arko markaan saxanka saarayo si u qurux badnaado marka walaahi geedkan waa macaan badan yahay zaaid uu macaan badan yahay wuxuu ku macyahay maalmaha ciida inaa cuntiin maalmaha arooska qabtiin mise xafladaha waa sameysan kartiin easy waaye walaalihii wax saas u dhib badan ma ahan wax culus ma ahan wax khafiif waaye oona dhaqso karin kartid marka insha Allah waxaa idin rajeynaa idinkan inaa karisiin maadaama xafladaheena wax dhamaanaya markasta xaflad aan qabno oo yani aan sameysano aroosyo badan maasha Allah waa sameysan kartiin hadii aad nafsadaada aragtid inaad u sameysatid gurigaaga dhexdiisa waa sameysan kartaa waa macaan badan yahay markaa cunaysid ma adko afkaa wuu ku jajabaa subagana wuxuu jilciyaa markaa wax karinaysid subaga wuxuu ka dhigaa qafiif marka waxaan dhan markaasaa iskugu dardartid oo karisid caraftiisa horta maba loo fadhin kara meesha caraf zaaid uu caraf badan yahay subagii iyo sokortii iyo heelkii wixii markaa isqabtaan qofkii karinay qofkii banaanka jooga wuxuu dhahaa gurigan wax xarfaa laga karinaa maasha Allah marka waxaa idin dhihi lahaa waa tijaabin kartiin walaalaheyga waa kana saa idin sheegay markiisana idin kugu sheego wixii aan barto waxaan jeclahay inaan idin la share gareeyo ma u maleynayo yani inaan sameyn karin idinka easy waaye cabirkana waa aragteen 3 bakeeri waaye iyo hal xabo ukun oo zaaid bis intaas le waa iyo subagaas iyo waxaas kale meesha yaalaan oo yaryar oo lagu daraa sida heelko kale waa kana saxanka soo qurux badan yahay fiiri maasha Allah waaye markuu qof marti uu ku imaanayo oo kale oo ku dhawa soo socda dibka inaa gashid jikada markaa qadada karisid wax yar le waa walwalaaqi kartaa asina waa qaadaysaa
meel gooniya dhigaysaa markuu qofka ku imaado gaxwaa ku siin kartaa maasha allah waana caraf badan yahay marka waxaa idin dhihi lahaa walaalahayga idinkana tijaabiyo hadduu ilaahay nacam dhaho please and don't forget to subscribe share iyo like insha allah biidnillah waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu